waayaha adduunyada wakhtigaa wixii jira waysada aqoontiyo wararkaa dahsoona waxa kuugu talagalay wahabkiyo dahaar sare inta ay kaaga weecshaan waxsan kuu tilmaamaan wargaysyada cilmiga in ay kaa waraabshaan waayo sheeg weeye taariikh mug weyn iyo waayihii tagtada jiray psychology waafiya philosophy wuxuu yahay waayo sheegaa tabiyeen adna dhagaha weelee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muuqaalkeennan waxa aynu kaga hadli doonaa dhacdooyinkii dunida ugu saamaynta badnaa 6 dhacdo oo ka mida waxyaabihii dhacay intii dunidu jirtay iyo saamayntii ay reebeen. dhacdada koowaad waa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. dunida muslimka ah iyo tan aan muslimka ahaynba ma xaqiri karaan saamayntii Nabi Muhammad ee adduunka iftiimisay ee uu horseeday xasillooni iyo isqiimayn nafeed. ka hor intii uusan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam soo ifbixin oo uusan diinta islaamka soo bandhigin bariga dhexe waxaa deganaa qabiilo yaryar oo si joogto ah isku dagaali jiray. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu mideeyay dhammaan qabaa'ilkaas isaga oo u dejiyay hadaf iyo micne ay isku si hal meel ugu noolaan karaan. waxa uu isku meel keenay ciidamo beeleedyadii dabadeedna gacmaha isku geliyay oo walaalo xigta ah ka dhigay. inkastoo weli dhiig daadanayay oo ay dagaala jireen haddana ma aysan ahayn kuwo qabaa'il waxa ay ahaayeen dagaallo ka dhan ah kuwo ka hor yimaada diinta cusub iyo risaalada rabbaaniga ah ee xagga Eebbe laga soo dejiyay. kadib markii uu Nabi Muhammad isku keenay dhammaan qabaa'ilkii ku noolaa bariga dhexe ayaa ay diinta islaamku waxa ay gaartay casri la yiraahdo casrigii dahabiga ahaa 786 ilaa 1258. waxaa xusid mudan in xilligaas ay Yurub mugdi ku jirtay. diinta islaamku waxa ay gaartay heer ay hogaamiso xisaabaadka iyo sayniska adduunka. Roomaanka iyo Giriigu waxa ay loox daarteen culuumtii xilligaas la qoray ee ay muslimiintu soo kordhiyeen. waxaa ka mid ahaa helidii numbarka 0, xisaabta aljabra, habka dhisimalka ee xisaabta. sidoo kale kafeega waxaa la soo saaray xilligaas. xasilloonida uu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu keenay gobolka waxa ay sababtay in ilbaxnimo heer sare ah la hiigsado oo dhaqamada kala duwan ay meel kasta ku baahaan iyada oo aan wax cabsi ah jirin. laga soo bilaabo dhalashadii diinta islaamka ilaa maanta waxa ay noqotay diinta ugu saamaynta badan caalamka, ugu rumaynta badan, sidoo kalena ugu nabdoon. nasiib darase waxaa yimid oo la dhoodhoobay diin u eeke ama argagixiso lagu saleeyay islaamka maanta, taas oo saamaysay dad badan noloshooda sawir qaldanna ka bixisay. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa uu bedelay oo uu qaabeeyay bariga dhexe, taas oo ah meesha maanta adduunku loolanka ugu jiro sidii uu ku hanan lahaa. haddaynu soo qaadano dhacdada labaad waa Gutenberg Printing Press oo saaxaha ku soo biirtay sanadkii 1440 ka hor intii aan la samayn daabacadda Gutenberg Printing Press. buugaagta waxaa lagu koobiyeyn jiray gacanta. waxa ay qaadan jirtay saacado si loo soo saaro oo loo koobiyeeyo qoraalada, kitaabada iyo dhigaalada. xafiisyada dowladda lagu shaqeeyo cadceedda, qoraxda iyo laambado aan iftiin dhammaystiran lahayn ayaa lagu shaqayn jiray oo waxa ay qaadan jirtay sannado si hal buug loo koobiyeeyo. Gutenberg waxa ay ku bilaabatay dardar oo waxa ay dabooshay baahi loo qabay. adduunkii waa uu riyaaqay oo durbaba isbedel ayaa hana qaaday. qof kasta waxa uu awood u yeeshay in uu si fudud u helo
kitaab kasta oo uu doonayo xilli kasta waxaa baahay aqoontii oo meel kasta gaartay oo awal dad kooban ayaa awood u lahaa in ay buugaag helaan waxa ay waxbarashadu ku koobnayd dadka qaniga ah balse waxa ay gaartay dadka tabaqada hoose Gutenberg Printing Press waxa ay bedeshay qaab nololeedkii bulsho ee jiray hadday ahaan lahayd mid siyaasadeed diineed dhaqaale iyo dhinac kasta oo bani aadamku dhammaystir uga baahnaa waxa ay ahayd dhacdo guuleysatay oo adduunka horumar la taaban karo u horseeday dhacdada saddexaad kacdoonkii Ameerika dad badan waxa ay aaminsan yihiin oo ay u tixgeliyaan kacdoonkan in uu ahaa qayb ka mid ah ama ku lug lahaa dhammaan taariikhda bani aadamka si kastaba ha ahaatee waxaa la dareensan yahay hirarkii wajiyada badnaa ee uu kacdoonkaasi dhaliyay kacdoonkii Ameerika 1775 ilaa 1783 waxa uu ahaa kacdoon ka shidaal qaadanayay ilbaxnimooyinkii hore ee Roomaanka iyo Giriigga isaga oo lid ku ahaa mabaadi'da Baybalka si looga xoroobo aragtiyaha hooseeya ee aan salka iyo raadka lahayn loona gaaro ilbaxnimo cusub isku duubni bani aadam raggii horkacayay waxa ay aaminsanaayeen in dhammaan dadku wada siman yihiin jinsi kasta oo ay xaq u leeyihiin in si isku mid ah oo cadaalad ku jirto loola dhaqmo sidoo kale kacdoonku waxa uu dhiirigelinayay in doorasho dimuqraadi ah oo xor iyo xalaal ah lagu kala baxo oo haddii qof la doorto ama xisbi talada loo daayo muddada ay xilka hayaan runtii dhacdadaasi waxa ay leedeed soo saaqday oo markii dambe u qaadatay in Yurub ay horumareen markii ay ka xoroobeen mabaadi'dii Kiristaanka taas oo ay maanta aqoon-yahanadeenna ku soo indhabeelay ay si indho la'aan ah u soo qaateen aragtiyihii ku salaysnaa dimuqraadiga ay ku marmarsoonayaan aynu kala saarno diinta iyo siyaasadda oo ay ku doodayaan Yurub waxa ay horumartay markii ay ka xorowday kiniisadda dhacdada afaraad isbedel doonkii reer Yurub 1517 ilaa 1648 waxa uu ka mid ahaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee taariikhda Yurub soo maray kaniisadaha diinta Kaatooliga waxa ay lahaayeen awood ay ku kantaroolaan dadka iyo dawladaha diinta Kiristaanka haysta dabadeed isbedel doon ayaa xortay kaasoo sababay in ay dadka cilmiga iyo aqoonta u saaxiibka ah bilaabaan su'aalo weydiin ay ku dhiiranayaan wadaadada kaniisadaha maamula ee dadka harowsada ujeedka isbedel doonku waxa uu ahaa in wax laga bedelo qaab dhaqanka kaniisadaha Kaatooliga laguna soo celiyo kaniisadaha casharada kitaabka Baybalka iyo mudnaantiisa ugu dambeyn natiijadii ka dhalatay waxa ay noqotay laba qodob Catholics iyo Protestants waxa uu horseeday isbedel doonku in hoos loo dhigo awoodaha kaniisadaha Kaatooliga oo dadku aysan ku xirnaan kaliya wadaadada ficiladii iyo dagaaladii ka dhashay nidaamkaas isbedel doonka ah waxa ay saameeyeen adduunka oo isbedelka maanta ayay wali qayb ka yihiin dhacdadan in loo tixgeliyo in ay tahay dhacdo Yurub kaliya saameysay waa qalad sababtoo ah saameyntii isbedel doonkaasi waa tan hogaamisa in si xor ah loo fikiro oo aan loo xirxirnaan wadaadadii Kiristaanka faafinayay dhacdada shanaad waa burburintii darbigii Berlin dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka waxaa jiray quwado gooni ah oo rabay in ay adduunka maamulaan sidoo kale waxaa jiray damac iyo kala shakin u dhaxeeyay wadamo dhowr ah iyaga oo mid kasta oo ka mid ah doonayay in uu dhul la wareego dabadeedna maamulo gaar ahaan dawladihii jabiyay Hitler iyo saaxiibadiis waxa soo kala dhexgalay muran ku aadan dano gaar ah oo ay doonayeen waxa ay doodoodu ku salaysnayd yaa maamulaya dhulka sida wadajirka ah loo qabsaday ma waxa laga dhaqan gelinayaa nidaam shuuci ah mise nidaam dimuqraadi ah natiijadii ugu dambeysay waxa ay noqotay
oo la isku afgartay. Ugu dambeyntii oo uu soo jeediyey boqor la dhihi Solomon labaha loo kala jabiyo khariirada dhexe, Jarmalku isaga ayaa dagaalka bilaabay. Sidaas darteed waa in uu noqdaa dhulka lagu muransan yahay. Waxaa lagu taliyay in qayb ka mid ah laga dhigo shuuci, qaybta kalena hab dimuqraadi ah. Ugu dambeyntii bartamihii Berlin ayaa laga dhisay derbi si uu u teedo magaalo madaxda una kala saaro nidaamka shuuciga ah iyo nidaamyadii kale ee xilligaas jiray. Markii la burburiyey derbigii kala qoqobayay magaalada sanadkii 1989 ayaa u dambeysay firfircoonidii nidaamkii shuuciga ahaa. Dadkuna waxa ay gaareen furfurnaan iyo xorriyad. Dhacdada ugu dambeysa dagaalkii labaad ee adduunka kani waxa uu ahaa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu xasuusta badan ee adduunka soo maray. Waxa uu ahaa dagaal aan kala saarin cadow, saaxiib, dumar, rag iyo carruurtoona. Waxa uu galaaftay nolosha malaayiin noole ah. Waxa uu kala irdheeyey kuwa isjeclaa oo uu mahadho kala dhex dhigay. Waxa uu sidoo kale saameeyey dhaqan, jinsi, dhaqaale iyo dhinac kasta oo nolosha la xiriirta. Dadku waxa ay gaareen heer ay meel kasta oo ay tagaan waddankooda ugu yeeraan oo ay kala garan waayaan meel ay ku abtirsadaan. Dagaalkii labaad ee adduunku waxa uu sababay in la aasaaso waxa loogu yeero Qaramada Midoobay, in qowmiyadda Yuhuuddu dhul ku abtirsato, iyo in dagaalkii qaboobaa ee adduunku mar kale dib u curto. Waxaa ka mid ahaa casharadii laga bartay dagaalkii labaad ee adduunka, qiimaha ay leedahay nabaddu iyo wada noolaanshaha, wada hadalka iyo hoos wax u dhammayn. Gacmo geel jire ayaa hoos loo dhaqaa ayaa run noqotay.